Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka horyimid magacaabistii taliyaha sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ee Soomaaliya gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud kaas oo saqdi dhexe ee habeenkii xalayta ahayd madaxweyne Farmaajo u magacaabay. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roble uu soo dhaweynayo iscasilaada taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Roble ayaa dhinaca kale amray in sareeyo guuto Bashiir Maxamed Jaamac oo shalay uu xilkaasi u magacaabay siihayaha inuu si degdeg ah shaqadiisa u bilaabo. Qoraalka rasmiga ah ee ka soo baxay ra'iisul wasaaraha ayaa u qornaa sida tan: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu soo dhaweynayaa aqbalaadda madaxweynaha ee shaqo ka joojinta agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu farayaa agaasimaha guud ee ku-meel gaarka ah ee NISA sareeyo guuto Bashiir Maxamed Jaamac inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Sidoo kale saraakiisha kale ee hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxa uu amray in ay si buuxda kula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay'addaasi Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in qoraalka ka soo baxay madaxweynaha ee ku taariikhaysan maalin 6 bishii 9 ee 2021 iyo qoraalka soo baxay 9 toddobadeedii ayaa muujinaya inuu weli madaxweynuhu uu daba socdo mas'uuliyadii iyo doorashooyinkii amniga qaranka ee uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri qoraalka. Waxa kale oo uu ra'iisul wasaaruhu ka walaacsan yahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu inay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran gungaar looga gaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hore hay'adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiskaasi. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu u arkaa wax laga xumaado in xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed la siyaasadeeyo, taas oo ah dhaqan halis ku ah hanaanka dowladeed ee dalka ay ka weynaato in cid kasta oo ku fikiraysa arrintaasi. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku adkeysanayaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardargeliyaan howlaha baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax degdegna horay u horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh. Dhanka kale, midowga musharaxiinta ayaa ku tilmaamay falalka uu ku kacay madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday inay yihiin kuwo balmarsan dastuurka iyo sharciyada dalka. Qoraal ay soo saareen musharaxiinta ayaa lagu sheegay in wareegtadan ay tahay mid lagu carqaladeynayo dadaaladii ra'iisul wasaare Roble ee ku aadan in baaritaan daahfuran iyo cadaalad la marsiiyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay in bulshada Soomaaliyeed inay ogaadaan go'aamada Farmaajo ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu khalkhalgeliyo xasiloonida iyo ammaanka aan cagaha badan ku taagnayn ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale, midowga musharaxiinta ayaa waxay ugu baaqeen saraakiisha ciidanka inaysan hogaamin go'aanada madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.